howlgalku sidii uu bilowday dawladuna runtii beelaha waa u sheegto way kala hadashay marka waxaan u arkaa horta horumar wanaagsan maxaa yeelay dilkii waa yaraaday iyo dhibaatadii shacabka lagu hayay muddadii la bilaabay hubka dhigista saadka warqabtaba hadda ramadaanul kariima la galay si wanaagsanaa loo afuray alxamdulilah ayaan leenahay runtii dawladdaanuna 3 arrimood oo hadda horumar la dhihi karo ayay gaartay oo bilow wanaagsan horta corruptionkii way la dirirtay oo dakhligii uu soo kordhay waxay kale mataqaanaa dhaqaalihiina halkaas ayuu soo kordhay markii corruptionkii lala dirira dhaqaalihii baa soo kordhay amnigina horumaray ka gaartay oo hubka dhigistaasi ama dadka hubka la wareegaysanaya oo markaasi haddee aan meel ammaan uga shaqayhayn oo markaasi dhibaatada ilaan shabaabka iyo ninka aan hubka si sharciya ku wadan waa isu ekaanayaan maxaa yeelay lama kala yaqaano marka waxaa la dhihi karaa marka taasna horumaray ka samaysay oo mustaqbal wanaagsanna waa soo ifiyay shacabka magaalada muqdisho ku nool ay nolol iyo xasilooni ay helaan ayaa waajibka saarana sidaa darteed marka qofki yiraahda hubka la qaadi maayo wuxuu bedel ma heli kariyo oo dadku ay ku noolaadaan marka taas waayana waxa la diidan yahay oo aan cidna aqbali karin inay dadka argagax ay ku noolaadaan maxaa yeelay waa ogtaa sanadkii la soo dhaafay in 5,000 ku dhow oo qofood ayaa ku dhimatay Soomaaliya taas oo adduunka markii la barbar dhigay oo Boko Haram iyo ISIS iyo wixii argagixisaaha oo dhan Soomaaliya ugu dhimasho badan marka meeshaas dhiigbaxaas oo joogtada ah arrin hadda Soomaaliya dan ugu jirtana maahan arrin loo dul qaadan karana maahan arrin dawladda Soomaaliya loo doortana maahan marka in arrintaas ay wax ka bedesho oo ay mataqaanaa dadka dhimashadiisa yareyso oo ay cadawga mataqaanaa ay gacanta la gaarto hadda waajibkii loo doorto waa hadda waxyaabihii lagu dawladii hore looga cabaayayna kamid tahay marka inay dawladdaani marka ay tii hore ka bedelnaatana hadda waa waajib